أستاذ إسماعيل إيلة marka hore Ustaad Ismaaciil soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa kulankaaga qaaliga ah inaad maanta aad marti ku noqotay page-ka Ustaad Amiir marka hore waxaan ku leenahay soo dhawow meeqa waxbarashada oo kooban deegaanka ku dhalatay dadka dabcan si gaar ah kuma yaqaaniin si fiican bal marka CV-ga waxbarashada aad iyo aad ma satahay bismillaahir rahmaanir rahiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wana saaxiibayaal meel baa joogtaan iyo si walba daawanaysaa muuqaalkan quruxda badan soo dhawaada leena galab wanaagsan muuqaalkan maanta waxaan ibu furka ka dhigi doonaa ama aan wareysi kooban la yeelan doonaa mid kamid ah macallimiinta ku xiran ama macallimiinta caanka ka ah baraha bulshada inta badan dabcan wada taqaanaan waa Ustaad Ismaaciil Iile marka hore Ustaad Ismaaciil soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa kulankaaga qaaliga ah inaad maanta aad marti ku noqotay page-ka Ustaad Amiir marka hore waxaan ku leenahay soo dhawow marka hore aad iyo aad ma satahay Ustaad Abditaah Ibrahim Amiir aad iyo aad waan ku dhawahay programka aad iyo aad insha Allah galabta hadii Ilaahay idin waxaan wax iskala dhihi doonaa aad iyo aad waxyaabo la xiriira waxbarashada way Ustaad Ismaaciil waxaad kamid tahay macallimiinta hadda social media aad u isticmaala aad iyo طبعا ودريما in safarkaaga ama geediga waa meel ka yimid bal marka hore taariikhda waxbarashada oo kooban deegaanka ku dhalatay dadka dabcan si gaar ah kuma yaqaaniin si fiican bal marka CV-ga waxbarashada aad iyo aad ma satahay bismillaahir rahmaanir rahiim ana waxaan ku dhashay Buurweyn ku dhalatay aad iyo aad oo degmo ka tirsan ama gobolkee way gobolka Hiiraan ka tirsan tahay ayaa awal waxay hoostigi jirtay degmo ahaan hoostigi jirtay Jallaqsi aad iyo aad laakiin hadda degmo madax banaan waa degmo madax banaan hadda dabcan aad iyo aad waxbarasho sanadkii aan dhashay waxa waaye dalaadii waxa waaye dayr oo talaadaan dhashay dayr talaada ha dabcan dadkana daawanaya waxa laga yaabaa aqoon dayr talaada markii la xisaabo taariikhan xaga ku beegan tahay 5 talaada 29 camal 5 talaada 29 oo hadda marka talaada la soo dhaafno kartaa ugu talaada waa dhiman tahay marka meelahaas laga cabirayaa taariikhda dhalashada malaha inta badan taariikhda waxa ku xisaab dadka geedka hoosada ku dhashay meesaas waaye laakiin mar oo dokumenti aan u baahday taariikh aan iska curi aad iyo aad waa jirtaa hooyo marka la sheekaystay aan isku aadi aad iyo aad marka October 1996 ay ku imaanaysaa iyo dabcan nin yar baa tahay marka la fiiriyo activity-gaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga marka la fiiriyo idadaada dabcan isma laha waxa leenahay shartay shaydaanka la ka xijaab raalli hada macallinka dayisi isma laha muuqaalkiisa waayahay dabcan waxaad ku soo baray deegaanka dabcan saak warqa waxbarashada asaasiga nacam dibadna waxaad soo digirtay magaalada bal deegaanka iyo halka farqi nooca u dhaxaysla Abditaahu waa mahadsan tahay wax isbedel weyn u dhaxeeyo waxaan ku soo barbaarnay nolol oo subax waaga markii indhaha kala qaadid ku soo indhaqaadisid jawi nabdoon aadiya oo qarash uu kugu soconin aadiya oo hadii Ilaahay ku idmaaya wax ugu horeeyo oo la qabanana ay tahay shaqadaas waxbarashada aadiya waxbarashada wuxuu ahay wax oo macna gaar ah oo weyn aadiya ay dadku u fadhisay ilmaha magac gaar ah laan dugsiga dhigta kitaab aan leeyahay kitaab aan leeyahay sax weey waxa laga yaqaan ay halka ugu wacdana kitaab macallinka yaqaan ama dugsiiley inta laga yaqaan waxa ilmahaas laga ilaalin jiray baahida laga ilaalin jiray xitaa dadku waxay aaminsanayeen geedkii canuga soo dugsiga mid qabsada inuu qallalaayo geed angegan noqonayo saas waa taariikh oo sallamiya masxaab la alifin sax waaye badana ardayda jidka ay maraan socodka meesha ku bata geedaha ku yaal way qallalaan marka ilmaha dugsiga aadaan jidkooda marka geedihii ay marayeen marka iska qalaleen dadku waxay u maleeyaan macnaha waa caado taariikh la isku aadisto dad la isku asdiwa wayna noqon kartaa sax aadiya baahidaas laga ilaalin jiray waxa kale aragnay dadka dugsiilada in mararka qaar markii xoogaa roob laan yar dhacdo kale ama adiga abaar ay dhacdo kale in ilmaha loo madax loo saarayo soo wareega fadlan waxa taban noloshaas bal ka war waa jirtay waana muxuu ahay wax lagu soo muudiyay ahayd adama ka qayb gashay waliga ani aad u qayb gali jiray waliba hogaamiye ahay aboon wal cidi dabcan istighfarta ama faqul tastaghfiruun babka minno kana ghafara qofka akhriya aadiya aan ahay oo bacdama waxay ilmaha waxa ma jiraan inaan fuli ahay aadiya oo macallinka aan aad uga cabsado arrinkaas ali waxa ma jiri marka macallinka sidoo wax u rabo aadiya aan u dhihi jiray marka badana waa hogaamin waayahay taas waa waa xaaladaada ama waxbarashada asaasiga weeyaan kadib waxaad timid muqdisho dabcan waxaad gashay iskuul aadiya ilaahay heer jaamacadeed aad dabcan taafilaya nacam bal ka waran waxbarashada inta joogtay maadaama aad deegaankii hooyada ay deegaanka soo tagtay aad deegaanka la timid halkan ay kugu soo dhaweeyay waxbarashada wax caqabad kala kulantay bal Abditaahu waa mahadsan tahay horta xamar markaa imid 2009 dhamaadkii ahayd aad iyo aad waxa xamar igu soo dhaweeyay ama deganay adeerkay ما شاء الله injineer Xuseen Iidle aadiya ilaahay cumri dheer ha siiyo abaal weyn waa u hayaa haduu halka naga maqlaan waxaan leeyahay Xuseen waad maasatahay maanta inaan sabab li kugu maadcelina tabcan wax weyn oo adeerkeen wuxuu qayb ka qaatay inaan qofkan maanta aan ahay ahaado aadiya wuxuu igu dadaalay laba shay aadiya laba shay igu dadaalay koo
inaan masaajidka laazimo horta ما شاء الله masaajidka inaan laazimo daqiiqad masaajidka ma ka maqnaa jirin ما شاء الله wuxuu kula adeerkay ugu dadaalay inaanan baranin meel fariisiga oo dadka oo mala yacni aan meel u fariisan ilaa hadda xamar aniga waxaan joogay 14 sano joogay caadiya meelaha qaar ma aqaan hadda alxamdulillah meelaha qaar ma tigi karin ma aqaan okay ka waran quraanka sidoo uu tiin quraanka 140 baadiyan ku soo xifdi intan tajwiidan ugu xifdiyay 140 maanta alxamdulillah هذا أو فعلا وياهي وما ستهاي ورساس كوبان wuxuu ku saabsanaa taariikhda ama CV-ga macallin Ismaaciil Iile oo kamid ah dadka macallimiinta Soomaaliyeed ee wax ka dhiga dugsiyada magaalada iyo jaamacadaha mid kamid ah waraysi qaybtiisa kale ayaan u gudbi doonaa nala soo daawaday lama satiin